aan ogeyn wuxuu dhib iyo isha dagaalkii 8 bilood soconay wuxuu ka geystay loo xidho macoys iyo koofiyad niyo khalad weyn beeheed madaxweyne ku-xigeenkana lagala xisaabtamaya isagaana dembiga la saaray isagaana xilka inuu ku waayo saacadaha soo socda hataa hadda ku sheegay aan hadduu isagu raali gelin bixin waa xilku ku waayo hore maxbuus 8 bilood hooyaday maraafiic la dhacayay iyaalkeyga la dhacay intii loo dhiibayo macoys la siiyo hore ana khalad weynna laga galay beeheed haddii kun aan ku noqonnana gun baan ku nahnay haddaan gob ku noqonna gob baan ku nahnay laakiin dhigayso daayro aniga hal su'aalan ku weydiiyay waa kaaga jawaab waa kaaga jawaab haddaan ku waxaan ku weydiisay wixii ka dhaxeeyay weydiin waxaan ku weydiiyay kaliya in qof macaawis shaah la siiyay ay dhulbaantooda ka wada hadlaan macal garaad macal madaxweyne ku-xigeen macal maayer macal tripolis maynaha ma dhaqan gobeedba ma dhaqan dhulbaanta ma dhaqan gunnima muxuu yahay waxaan magac bixin war anigu dhaqankaygu gunniba ma qaadanayba sanadkan gob ma moodiniba hataan caawa jarjarna gunniba aan qaaday isaaqo ama hooye ama baroorta dheh ninkaa waa la dilayaa gacan سؤال شغال حوي حتاج لها كده حتاج لها كده وحول إنك وافول حتاج له حول إنك وافول نبا حاول تجاوب هذا مفهوش إنك في لقد ما وافولي أنا ونيو خنيسين يلمع عبار سمني وحنا مفهومنا ركنا جوالينا رمبا كل شيء جنا رج جدودن وين دعس أسباب ساسودم حتى جاوب ساسود حتاج له أدارة فكر كيسو قبال لكن فكر كتبتها إلى أسعاره هذا المتجاوي يا دوساسير هذا المتجاوي هذا الكعب التاجر حلم دي هاي ورياد كنت مريحان أنا جاي مشي مريحان هي كان بعيني مريحان وأقول كان دار على سو ما يصير دارات كده يسوع أنا رحت كل شيء داير على سو أبغى بقول الشيء وان كده جاي يا عويان أبغى بقول الشيء هاي ممكن تلك دليرة دارو كده هذي سعاين يسوع دارو تقريبا كم دعاين ورورت وايد السلام يا إنه arrintaadu maxay ahayd waxaad ka hadlaysay maxaabiistii loo xidhay dhar baa loo xidhay iyo waxaan ka hadlayay maanta waxaan daawaday garaadadii madaxweyne ku-xigeenkii taliyihii booliiska maayirka laasaxaanood intoo waxay isku riixayeen dhar baa loo xidhay ninka maxaabiis baa la siiyey qalad bay ahayd in la siiyo iyo sax bay ahayd iyo anigu ma xidhin iyo hebel baa u xidhay shijiraadii wada qabanayay kulligood horta daahiro waa taqaanaa xuquuqda maxaabiista adduunka oo dhan meel kastoo ay joogaan qofku markuu maxaabiis yahay wuxuu leeyahay xuquuq gooni ah oo dadka kale ayna lahayn marka iyada maadaama uu maxbuus yahay sidii maxaabiista adduunku ay ahayd baana loola dhaqmay maxaabiista iyagoo qaawan oo dhar xidhnayn lama hayeen maadaama oo la qabtay maxaabiistan iikaada oo soo noqonaya garaadada waan u soo noqonaya maadaama oo ay raggani maxaabiis yihiin sidii maxaabiista kale adduunku ay maxaabiis ugu yihiin baa dharna loo xidhay loogana bedelay markaa iyada boardkii iyo dhibaatadii markaa iyada ay la kulmeen ay haysatay meelna lagu xafidayo waxa weeyaan maxkamadaha iyo qof walba dhibkii u geystay iyo waxa ay kala mudan yihiin unbay meeshooda ku joogayaan maasha allah tan waxaa imaatay garaadada iyo madaxweynaha iyo anigu maan dhegaysanin oo maan maqal cidna cid kuma riixi karto meesha madaxweyne ay leedahay garaadkuna waa sandaradii guud madaxweyne ku-xigeenkuna isna xil buu hayaa madaxweynuhu ka hooseeya midna mid kuma riixi karo intooduba hal wax bay ka waafaqsan yihiin oo ah in ay waddanka nabadgeliyadiisa sugaan wixii maxaabiis ay hayaan ay nabadgeliyo meel ku geeyaan oo lagu hayo dhaqankan aad ka sheekaynaysaan in maxaabiis على مشتيك هذيك أشوف كم جواب ما تتوقع هذا يحكي له أنا أقول مود ممكن دغيسو وين شاشه قرعسن قيلنا يا عيتماyo ruuxa gurnima qof maxbuus ah oo adiga ku xiran
إن أنت بابليك سو فريستا وهدايا وهدباتينيا وهينيا وحاصل دقن الحموم دقن دارودنا maahan دقن Soomaaliyeedna maahan دقن Nasabiyeedna maahan waxaan leeyahay wiilasha yararka ee baxsata marxaanku waa nacala tiidin ku yaale edab yeesha waa dhaqan xumo daarood bay ceeb ku tahay Soomaali bay ceeb ku tahay in marayaro lan loo xiray iyo nin meel ku xiran iyo waa direynaa waxaas guntaa tiraawriya dhaqan xumada noocaas ma taqaana ulama iman kartaan waxaa la rabaa inaad dhaqankiina ilaalisaan waxaa la rabaa si dadku nool inaa u noolaataan inaad habeen iyo maalin kaas waxaa dilaynaa social media ka tiraahdo maxaad masal u soo qabanaysaa dilaysa waxaas waa dhaqan xumo waa fuulaynaa waa dhaqan xumo waa dilaynaa waa dhaqan xumo waryaa carruurta yararka aniyo waxaan ku leedahay caliso dad waaweyn maaha intaad ilmo yar soo saartaan akhlaaq lahayn haddana dadkina caayaan oo magaca qabiilka ceebayaan oo liya waxaani waa daarood waa dhaqan xumo waxaan aqbali karnana maaha waxaynu qaadan karnana maaha waa edab darra waxaani marka waxaan leenahay haddii arrintaasi jirto gunnima caawa halkaa ka dhacday haddii saakay calal loo xiray nin maxbuus ah oo xiran oo loo xiray laysku qabsaday waa gunnimo wax la aqbali karna maaha magacii daarood bay ceebayeen kii Soomaaliyeed bay ceebayeen mana ogolaanaynaan ku leenahay marka waxaan leenahay ciyaalkan yararkaan aniyo taad meesha soo saartado nin weyna in habeen baan diraynaa aan dhegaystaad markaa dembiga ku tahay lama ogola waxaas ninkan iman baa gacanta ku hayo haddii dilayaan markay soo qabanayeen wiilal yarar 20 jiraa soo qabta way dil lahaayeen odayaal baa loo keenay qabiil baa sandaladooda ninka dhex jooga garawana waxba kama gelin qolo kalena waxba kama gelin ninkaas haddii la daynayo iyo haddii la haysanayo intaba bahantaa gacanta ku hayo laakiin waxaa siriyaa la soo fariiso waa dilaynaa qodobkan aad leedahay macawis baa loo xiray iyo cimaamad baa loo aragtay yalow bay meesha keeneen wax meesha yaalla horta maahan nidaamka laysku haysto waxa weeye waa protocolkii iyo systemkii waxaad moodaa xabuus kula lama maqlo holboy adkaaga ma maqlaani holboy adkaaga lama maqlo adoo musqush ku jirtaan hadle miya hadda ma jiro maqal ma jiro maqla daayro ninka lama maqlay hadalka lama maqlay sug iyo hujtay ninkaas si aan Soomaaliland wato Yaasiin Cabdiraxmaan hay hadal wala salaamay daahirna aad baan u salaamayaa horta waxaan idin sheegayaa dadka horta ninka halkaa ka dadka wax samaynayso lama idhaahdo waxbaan samaynayaa kowde aniguna meeshan kaala soo hadlaya waa diinigaas waxaa laga maqli maysaa daahir diini baan sii qofka waxba laga maqlayno mashquulsan weye daahir diin haye والله ما أخذ مغلاه دار على الزوم. لا تجيني هاي صعب. هاي مع موضوع عن خالي نمحيه. يودي سؤاله. بو. درويش كسوري هذا الك. درويش كسوري. هذا ما له مغلاه دايرو. ورد اليوم أنا ما أنتوا أيام دور محن عليه كلية maxaabiista hala ilaaliyo hal maxaa alo waxaan mareexaanka wali oo wada dhacda oo baa ku sheegaya waxaan dilayo waxaan wasayo waxaan aakhiro u dirayo waraa cid aan maanta kala hadlayaa ma jirto fakin harti baan ahay fakin bulbahantaan ahay in waxaan ahay caawa shaq qoloo inay u xidhantay laasaan wariya sarkaalka ugu sareeya ciidankan wataa oo caawa iyo xidhan anigteenaan haddaan doono madaxa kala dhici karaa weeyaan mareexaan baa waxa oran karin isaagna sida bisadaha ii daawanayaan miyo هذا ميت بيني شيء يا عاو نيك الربا ودارو يا لين هلا يا الشرعية رياض ستيت بلاد دنيا هذا المراسيل هذا علاص قام الشرعية يسوي لاني ويعني ولاني وامع ودي يا حتى محنا بحال ولا حان كلا دعيانيو أنا قاعد يقدرون مجد على جال هذا مريحان هذا لكن يجد فيس عد بوتنا وعاو يقدرون مجد ميو ماذا حين كان كلا دعو أيان يدور ودني داونه وليه ما أنت توجنا هنا فجارة كتوجنا حتى ما قرنا لا أنت الله يرضى شيء فجارة عد أو أي صومالي أو دنا درويش هو سيدي سلام حسين من ليت خبرنا يا مالن يكاد
haddii dhici weydo midaana niyow anaa gungun dhashay noqonaya haddii faysal cabdi buutaan oo laascaananti laga kaxeeyo lagu wareejiyo isaaq ilaahay bilaahi talaahi magaca dhulbahantaa saxeexaya barcad ummaddu arkaysa halkaa inta loo geliyo xarig loo geliyo basaa loo marka cad baa hadda maaha kabta wallaahi oo wax laga wada siman yahay ninkii 8 bilood halkaa ii fadhiyey oo aan nabad aan ku geeya burciya hargeysa niyo waxaan ku yiri magaca dhulbahantaa baaba ayaan ku yiri waa la dilayaa laakiin maxaabiista kale waa la fasaxaya midaana ku sheegaya faysal cabdi bootaan taliya ku-xigeenkiisa 12 sarkaal baa lahayo oo garbacas oo laga soocay 12 ka waa la dilayaa barka cad baa la dilayaa waa taariikh qormisa haddaad is leedahay raja qof iyo caawa ka halkaas ugu shay waa maqlaysaa تكلم أبو مقلة waxaan ku sheegay naaro doctor kana oxygen soo daayro waxaan ku sheegay nimankan dhulbahante